تيجي وبدن هواك مخورة من المدحين وحنا كاجا ما هاد نقينا وقت كاجا قاري جاي نصيصين النقاب الشو ذو حول بدن كوي الله وجدد يقوم بمسنة ما أنت كلن كينن حويا هواك السومالي الله واي هو جامين يسوع دلدا النجاد نتورك إني كوجو ما هاد نقام خطبة دي معناتي اللي ودا شيء سي شرويني حسبك aad ku boorisay golaha wakiilada iyo cid kastoo ay khusayso in dumarka saami go'aan laga siiyo kuraasta doorashada baarlamaanka in lagu soo socota waxaan mar kale kaaga mahad celinaynaa mudane madaxweyne mar walba saad ugu furan tahay civil society-ga anagoo ku aragnay inaad tahay madaxweyne fahamsan xuduudda civil society-ga iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada anagoo ognahay hawlo ku yaalaan 3 xubnood ayaa hadli doona dabadeed oo ay ugu horeyso gudoomiyaha dalada haweenka in nagaad aad baad ugu mahadsantahay mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud iyo dhammaan wasiirada halka fadhiya ururada bulshada iyo marti sharafta kale waxaan leeyahay madaxweyne haweenka Soomaaliland aad bay ku soo dhaweynayaan anigoo ku hadlaya magaca haweenka Soomaaliland وأنا كهاد لين مجا دلة النجاد وكلية ويا ما دام أنا مجا هواك سجنو ويا أنا كهاد له مجا هواك سومالة فرق ماذا حوينه معلم في دويدي أنت كوريسيبا هواك مرة والبا واحد يجوا هدوء فريين إن الجيستان تواقف كسويرية كنت هجاريسو حرمت هواك سومالة تيجي قدام مثال عن كل عبها ما يحينو كلية إن هواك وكقيم قافان سياسة ده waxa kale oo ku jirtay inaad ka taageeri doontaan dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada haweenka Soomaaliland saddexda qodob aad iyo aad ay haweenku u soo dhaweeyeen waana kaaga mahadnaqaya waxaan ku leeyahay madaxweyne aad iyo aad ugu mahadsan tahay sida bareerka ah ee haweenka Soomaaliland ugu heelan tahay haddii aan ku soo dhawaado tii ugu dambeysay oo in badan laga shaqeynayay oo ahayd arrinta haweenka ay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan talada waddanka way helaan kooto ama number cayiman hore waxaan u ogeyn in laba jeer oo hore aad u gudbisay golaha wakiilada sidoo doonta baa u dhacdo wali aanay suurta gelin maalintii dhaweyd haddana waa isku celis waliba wuxuu ahaa baaqaagu in la baasgareeyo oo la fuliyo arrinta kootada si ay haweenka ugu fududaato doorashada soo socota ee golaha wakiilada inay si dhab yar uga qayb qaataan taas waxaan ku leenahay madaxweyne aad baad ugu mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sharafta inoo tahay annaga mar walba waayo maadaama aanu ku jirno hawlaha qaranka aanu ku jirno mar walba oo haweenku ay ka mid yihiin lafdhabarka Soomaaliland waxay aad iyo aad aan kaaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee dhiiran ee bareerka ah ee aad u dhiibatay hadalkaagii madaxweynenimo ودك يروح حاولنا إنه هو عم يحسنا وهذا يدور إسكعابنا دمها اليوم دباتوك إنه يدورنا نحن نعلم في الحق عروح يقول ومسيرك ما هوشلا أروح وينك أيوة هنتبي سفر تلقى يوغندا أنا رمضان سيدنا بربري إذن أمين وحياه صومري وحي مركا قوان سبعين إن يدركوا داس سيدا أقول لحظة بدل أما هو حبون إن يدركوا الإسلام
maadaama systemkii dowladnimo uu baaba'ay oo Idi Amin iyo waxyaabahaas ay baabi'iyeen waxay garteen inay koota bixiyaan koodadka matalaya bulshada matalaya ay siiyaan koota halkaasoo ka yimid waan runtii aad ayaan uga farxay nidaamka ay dejiyeen ee ahaa mid aan eex lahayn laakiinse garab siinaya in gobol walba uu soo igmado dumar uga soo qayb gala baarlamaanka intii kale ku soo galaysa intikhaabaad ku soo galaysa waa halkeedii laakiinse inay gobol walba soo dirsado tiro cayiman oo dadkan dadkaas baarlamaanka fadhiistaan iyadoo dantii gobolka ay ka socdeen nabay u jooga kana qaybgelaya taladii qaranka iyo dalka intiisii kale fikradaan aad iyo aad u khushuucay leeyahay gomihii wasiirada markaa ka mid ahaa iyo madaxweynihii markaa aan wasiirka aan u ahaa waan u soo dejiyey fikraddii nasiib darro mudday qaadatay horta in la fahmo waayo waxaa loo arkay in tirada haweenka ee koota ku soo gashaa ay tirada eg oo raga ka saarayso talada ee haddii taasu dhacdo wax qaranku u baahan yahay oo markii horeba hadda meesha fadhiyey ilaa xabadda in ku jiraan markana way jirane boqol bay meesha fadhiyey in badanna meesha way hayeen muddadii loo baahnaa iyo maxamed xabiib badnaayo oo soo maray way ka soo gudbeen laakiinse waxaa markaa laga soo gudbiyey waqtiyadii intikhaabaadka dimuqraadiyadda doorashada codka la siinay bulshada oo dhan cidii qaangaara ee cod bixin karta waxaan aad iyo aad kugu mahadnaqayaa madaxweyne in intii aad adigu xukunka qabatay fikraddii taageerada haweenku ay soo noqonaatay si gaara ayaan horta anigu shaksiya walaasha anigoo ah kugu mahadnaqayaa isla markaana kugu mahadnaqayaa oo ku hadlaya dadka ummadda haweenka aan magaala ku jirin xisbiga ku jirin laakiinse xaawal ku abtirsada madaxweyne waa fikrad wanaagsan geesinima u baahnay waa muujisa laakiin waxaa imanaya ta ay afrika qaraar lagu ilaalo bahaw sidee ayaa uu shaaciga iyo bulshadeena u waafajinaa dhaqankii ay intaa ku soo dhaqmaysay waxaynu ku waafajin kartaa horta inagoo fahamna inaanay ahayn iga bad ee wax weyn aynu laba gacmood ayaynu leenahay labadii gacmo waxay isqabsadeen waddanka hawada shaqeeya ee ma aha waa markaygii iga dhaqan ee waxa weeyaan markii bulshada oo dhan oo gacmaha ishaysata ay dalkan wax u qaban lahayd kootahaas wuxuu nagu dareerayaa horta waxyaaba oo xasaasiya anigu tala ahaan waxaa soo jeedinaya saddex xisbi oo qaran baa diiwaan gashan oo sharciya oo xalaala oo aan kontrabaan ahayn saddexdaa xisbi la yidhaahdo qof walowba saddex dumarkeed iyagoo markaa xisbigooda gudahooda ha kala soo baxeen saddexdaa qof oo iyaga markaa noqonin wax reer helo tabo iyo gobolkanu tabo iyo qodxan kale iyo waxyaabahaas qoraamo meesha yeelata xisbigii saddexdii xisbi ayaa qofba saddexdooda qof keenay waa sagaal tuugna maxado idinkaa keensan markaa waxaa u lahaa sida aan isleeyahay ugu hawlyarta malaha waa sidaas eday malaha talooyin kalena ma way jiri karaan lana waxaan isleeyahay xisbiyadii qofkii haddii qof karti la noqdo dadka dumarkii lasoo igmay hadday noqdaanaya haddii kaleba waa idinkaa ay keensaday xisbiga wixiibu wuxuu la lahaa haweenka hawshaa u buuxin kara ee ka maraya
quality ayay ku keeni lahay iyagoo oo dhexdooda kala soo baxay dadkaas saddexdaa xisbi saddexdaa qof ay keenaan waa 9 qof baarlamaankiina maasha allah waa waasac 9 dumar oo ku soo biira hal wanaagsan oo ku soo biira waa tahay adigu taa iyo talooyinka iga dambeeya haddii aynu nidhaahno gobollo laba ka keen waxaa markaa imanaya gobolladii way badanyihin kootigii intii laga ogolaana intaa way ka yarta markaa gobolladii ayaan yeelanaynin oo cidi ka soo baxaynin marka iyana waxay u baahan tahay in laga fikiro waxaan sanadkii madaxweyne wax qaranka ugu hagaagan mooyee wax qaranka kaga xumaanaya ma jiraya waayo qarankana inuu jiro qarankana inuu horumar yeesho qarankana inuu hagaago cid xaawili ka jecel ma jirto fursad hayso horena looguma khasaaray maantaba golahaaga waxaa ku jira haween badan waxay soo kordhiyaan mooye wax khasaaro laga arkay ma jiro muwaadinnimo daljacaylnimo qaran jacayl intaba aqoon karti cadaalad daacadnimo intaba waa ku haysaa dee intaasoo kuu sii badata madaxweyne muxuu bay lagu sii hagaagaya anigoo safar yarna u baxay oo shaqadii waa gaariga saaran tahay horta inaan fursadda qaaliga aan ka qayb galo baan jeclaysta diyaaradoodeeda tahay ka tagto wali haddaba waan ka talaabo gaariga yar waan kaxaysanay laakiin aan intaa idhaahdo inaan la dhinto waan jeclaadeen waa in hambalyada waa dhuntaysatay madaxweyne waa wixii kalaa anytime diyaar baan ayaan ahay wixii la iga baahdo marba waan u joogaa inta ilaahay igu simo dee 50 sano baa la aaminaysay I think inta cimriga ka hadhaya madaxweyne waa iyo golaha waan salaamayaa waxaan leeyahay hawshaas iyo naga qabiilo in badan bay meelaha ka dhexdhacay shakilka ka saara dadka shakilka ka saara wax u hagaagaya iyo wax wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قف اسكت ده يعني مش ده كده واحد لو انا قف اسكت ده سوسايد ما بيقدر يحتوي سوق اللي عسكري قداش كده كل كده يسود وين باريا ما كانوا يسود كده ما قالوا اسكت شو اللي باتو ما جالس ادنى يوصل ده ساعه ولا هذا الخيار ولا ولا حوالي هل بدون بنسوق هل كده كان فقرين يا ابو جميعنا واحد إما كنا عم نشوفنا حاجة في دور البحرين وعلى دور البحرين صارت دمر كي مدام عامل كقرب قل ترى الدكتور وليد حرمة واحد شفته الدول كفقرية كل سياش ووطن الدول وصومالنا أكسين كتيران با كوتل وكوتل وقراية دمر كأني برلمان كل فكر جران يقرايات كان وحاولي يا بنت الموضوع نصحنا أن ندرب وجه له إن جاتنا راحت أي مهجانين سوى حاولي وأبن قرن قوي أو international community ويا أنا ليش أقول إن أبغى يا وادي قريب مرة بدو ويدين مو وزيرة إنه ويدين مرة بدو ويدين يعني إيه مصدوم مرة هي برلمان في كوتشي مرة واحد الله ما نقول شيء سيء الله ما سيء الله مركز سامر أنا قلت شخصيا مهما شينا أيام الشهر واحد مهما شينا تكتون نسا 1000 chains journey starts with the first step. وحنا نشري سفر كا كوكا كلمة تقول كوكا على تلابضها
marka waxaan oran jiray waa tallaabadii hore tallaabadii hore dheeraato muddo dheer isbedel baa lagu waayay marka madaxweyne waxaan u malaynayaa markan waxaynu gaadhay guul baynu gaadhay adaana kugu mahadnaqayaa guusha waxaana doonaynaa imaka riixidda dushka ugu dambeeya imaka golayaasha furayaan in arrintaa aad nala dhambaysaan executive nala dhameeyo adiguna ugu madax tahay waana mahadsantahay waxaa farxad weyn iyo ah runtii inay maanta baarlamaanka Soomaaliya aad iyo aad u qiimeeyo umalayn maayo inay u baahan tahay inuu isu tilmaamo ahmiyadda awood u leeyahay qaarkiiba wax ka yihiin isu tilmaamo inay xaq u leeyihiin qayb kasta oo nolosha dadka iyo hogaamaha dalka iyo siyaasadda kasta ay si uga galaan waa mid aan mugdi ku jirin aan hore ku jirin haddii dhaqankeedu la yimid siyaasadda dowladda marka siyaasadda isu taagay in la yidhaahdo reer yaryaroo ay miis ka soo saaraan reerku marka cid baarlamaha loo dooray wax loo dooranayo waa iska dee wax uu kolley u soo jirin dhaqankeeda ku soo jirin laakiin dee dadku horumaraya bulshada horu socota oo dadku hore u kacsaado dee wuxuu iska bedelaan maanta dumarkeenu awalka hore loo shaqaynteeda weyba ka badanaya maanta haddee siyaasaddii iyo dunida waynagu eegaysa waynagu imtixaanaysa siyaasadana dee duu kale marka ku jiro taana ku garana muxuu ahay aqoonta ku leeyahay ictiraafka dowladda kaasiti waxay ku soo barteen inay ka wareegto dumar badan oo wax tari karaya oo ka rag ka aqoon badan oo ka tacliim badan oo ka aqoon badan oo ka skills badan bay marka maanta waxay la tahay muran kuma jiro mugdire naga geli maayo ahmiyadda ay dumarku siyaasadda ule marka in koota la siiyo iyo in wax loo qabto in loo mariyo in xaqooda la mariyo intaba waa waajib madaxweyne kasta iyo dowlad kasta iyo kulligeeda wada saaran weeye marka insha allahu tacaala hawshaas saaro ka wada howlgallo oo ka wada shaqeynaayo noqon doontaa mideen meel usii wejisay noqon doontaa ilaahay waxaa ka badanayay marka aad iyo aad dadaalka ay ku jirto way wadi doonaa dumarka muxuu ahay qaybta ay leeyihiin kootaa la siinayana midalkooda howlgelin weeye insha allahu tacaala aad iyo aad wada mahadsan Ini dapat.